الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أخيارتك وحرن جنال كتوسنة تكنيكال ملو بأجوبتان وحين الله يهي ومركل يوم موقال عصب سودة بهذا موقال كان ما أنتو حاربا إن شاء الله إن آن ديردو كسارة أما أنكو فلنقايو بريهان وحاسو عضو سيدات أكتهم با شركة واتساب أفرت بشان أنكو قدو جرنو هذا وحيسو سارين شروعيو وقف والبو oo hadduu akhriyo hore uu sii ordaayo oo meelo kale sii aadayo shuruucdooda waxaa ka mid ah tusaale markaa whatsappka furtid sawiraan ka qaadad aan qof kasta whatsappkiisa furo bariyahan wuxuu arkaa sawirkan ama kale wuxuu arkaa in desktopkan la soo bandhigayo oo hoos ay ku qoran tahay meeshan waxaa dhahdaa not allow iyo agree marka not allow hadduu dhaho qofku waxa waaye uu ka laabtay agree hadduu dhahan wuu ogolaaday shuruucdan ay soo dhigeen shirkadda WhatsApp ama kale ay soo saareen shuruucda agree hadda waa ku raacday macnaha shuruucdooda hadii not allow ama not now hadda kuma raacin waay okay maxaa dhacay hadii aan dhaho agree maxaa dhacay hadii aan dhaho not now maxay tahay shuruucda ay soo saareen shirkadda WhatsApp intaas rabaa markii inaan ka hadlo okay shuruucdan markii aan aqrina ama markii aan ku fahansiyo kadib hadii dan ku tahay shuruucda waxa leedahay agree hadii dan ku ahaan waxa leedahay not now okay hadii agree dhaho awal marin noocay la hadii not now dhahan taas iyada insha Allah waa sheegaynaa marka hore sadan ku hormar shuruucda soo ujeedi meesha saddex qodob waa saaran hadii intaas wax ka badan ay aragtidna help center aad tagay markii WhatsApp kaaga oo ku soo qorno ama waba ku soo qoraa waa ogahay qof walba u soo qoraaba bisha afarta bisha laga soo bilaabo ilaa iyo maalmaha dhan qofku WhatsApp furo hal mar kamid ah waa in loo soo barshada marka la soo bandhigana qofka hadba waa soo ugu falceliyo hadoo dhaha agree na waa gooni hadoo dhaha not now waa gooni shuruucda marka maxay tahay waxay leeyihiin marka waa kana meeshan waxa ku qoran hadda key updates waxay leeyihiin include more information about waxyaabo aan soo saarnay waxyaabo fara badan isugu jiraan waxaana ku ka aalo dhahay WhatsApp service and how we process your data WhatsApp-ka yani waxyaabo update ka soo saar WhatsApp-ka waxa waaye WhatsApp-ka in uu process garay datadaada wax walba datadaada ku saabsan WhatsApp-ka inuu qaato marka agree aad ahayd waay wax kasta oo WhatsApp-kaaga ku saabsan WhatsApp-kaaga sawiradaada qoraalada chatting-kaaga xitaa IP address-ka telefonkaaga hataa way la wareegayaan iyaga la wareegay telefonkaaga wax dhan isheeg as WhatsApp wax walba ku saabsan yani datadaada iyaga ku wareegtay waa ina ogolaataa in datadaada la process gareeyo ama la qaato waa ina ogolaataa waa in lagu socdaa WhatsApp-ka waa inuu kula socdaa saas laga wadaa tan labaad maxaa waay marka maxay u qaadanayaan ay maanaysa marka maxay ka rabaan xogteeda maxaa loogu baahan yahay meeshan xogtaada waxa loo baahan yahay in business ahaan loo soo bandhigo in business ahaan loo adeegsado business ahaan loo adeegsado Facebook qaabkee business ahaan loo adeegsadaa tusaale waxa aragtaa tusaale qof baratay oo cusub ama jaamacad ama iskuul saaxiib ama meel saaxiib ku noqoteen qofkii marka lambar kala qaadatiin oo WhatsApp-ka ku sheekaysatiin oo Facebook yani WhatsApp-ka ka sheekaysateen Facebook-ga ma hay asan Facebook-giis adana Facebook-giis ma haysid marka WhatsApp-ka sheekaysateen loo maalin kadib waxa aragtaa in lagu soo bandhigayo Facebook-giisa ninkan Facebook ka gashidba qofkii mar dhow asbarteen waxa ku arkay Facebook-ga ku arkay meesha soo ad friend lu leeyahay ama asxaabku soo darsay isla markiiba qaabkaas ay marka rabaan inay u adeegsadaan waxa la how business can use Facebook hosted service to store and manage their WhatsApp chats wada sheekaysiga qof kale ku dhaxma dadku la sheekaysiin chatting-kiisa la aruuriyo dadkaas la aruurina chatting-kooda markii la aruuriyo oo hal meel isugu geeyo intaas dhan marka lambarooda wixii dhan la hayaa in marka dhow Facebook wax raba lagu soo bandhigaa marka ayaga marka xayisiinta rabay ku soo bandhigayaan qof kale waa ku sanduul marka qofkan waa kana aad marka ma doorin kartid xogtaada daahan soo as noocaas ku galaynaa waa lagu sheegayaa saddex waa kana si ay partner u noqdaan marka Facebook si ay partner u noqdaan qayb ka mid ah Facebook in lagu xayisiyo kambaniyada wax soo saaro company product wax soo saaro Facebook-da lagu soo xayisiyo oo lagu soo saaro marka daatada marka la wareegno intaas dhan ku sameeynaa hawlaha hadii aad ogashay marka waagana by typing agree hadii aad ogashay marka waxa taawanay meesha ku qoran tahay agree oo meeshan ah you accept the new term under privacy policy waxa aqbalaysaa marka shuruucdii wixii soo saareen hadii marka aan aqbal waay maxaa dhacay marka hadii aqbal waay waxa u dhahay waxa saameyn ku yani 8 February markii la gaaro WhatsApp-kaaga dhamaantiis gabi ahaan buu istaagaa saameyn ku imanay 8 bisha 2 February markii la gaaro hadii aan agree dhihin oo not now aad ahdid xogtaada aad diiday in la qaatay darteeda
sideeda February laga bilaabo WhatsApp-ka ma mitid waa ka baxday waay shirkadda WhatsApp-ka toosa uga baxday waa ka hartay marka daatadaada diitay waa ka marka waxay ka wadaan na soo raaca haddana soo raacaynina xoolayn noo dhaaf camal marka hadda waxaa jira marka beryahan waxaa la isdaba maraa application oo dadka waxay isticmaalaan hadda loo guuri gaalada oo waaweyn isticmaalo waxaan qaar ka mid Soomaalida dad badan ka soo hadla barnaamijkan waxay isticmaalaan hadda application waxay aadeen loo guuri loo yaqaano Signal asana waa sida WhatsApp-ka camal asana waa fiiriyay oo waa la soo degay waa barbaare laakiin WhatsApp-ka markasto ka fiican asiga wuu yiriyaa marka Signal application-ka gaan waayo Play Store-ka ku qortay Signal oo soo boodaa caadi oo arkay waa application-kan waan sameeyay raadi xogaa ma sha Allah dad qaar hadda isma Signal-ka u guureen waa qaabka WhatsApp-ka camal laakiin WhatsApp-ka ka update garaysan wuxuu leeyahay wicitaankii uu leeyahay video call-ka wuxuu leeyahay caadi wicitaankii kale isheek aday meeshii profile-ka caadi uu leeyahay meeshaan data gashid wixii WhatsApp-ka wallahi uu leeyahay noocyadii dhaweey laakiin WhatsApp-ka mar walba ka badan asiga asana hal maalin hal casharaan ka dhigana insha Allah laakiin dadka hadda waxay u guureen application-ka Signal-ka u guureen waana application naftigiisa uu sheekaysi isaga fiican laakiin xogtaada sida WhatsApp-ka camal asana aan shuruudo ku xirneen soo kale dadku waxay isticmaali jireen haddana loo wada guuriyo application-ka kale Telegram-ka asana aad loo adeegsadayo marka oo sheekaysi dad badan waa adeegsadaan hadda waa loo wada guuriyo maadaama WhatsApp-ka sheekadan ay keeneen marka adiga ku xiran tahay oo u baahan tahay in xogtaada lagu wareego haday tahay agree xogteeda uma baahan in la wareego maraw not now haddii not now maxaa dhacay 8 February WhatsApp-kaaga ma shaqeynayo waa istaaga WhatsApp-kaaga haddii agree dhahday nasiib xumo agree hadaa dad badan wax akhrinayna isaga dhufanaya haddii agree dhahday waxa waaye waa ku daysay oo waxa waa ajir xasanaad alaagaasi waxa waa lagu kala baxay marka intaas rabaa maanta inaan ku soo gabagabay inaan idin siiyo labadan qodob yani meeshaan muhiimada ay kala leeyihiin waa fahanteen insha Allah aad u mahadsantihiin inta aan muuqaalka lagu gaarin waxa idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh